kulanti wacan oo wanaagsan dadkana dhegeysanaya idinkiinba kusoo dhawaada barnaamijkeena dhegeyso oo dhuux ood aalaaba ka dhegeysataan idaacadda warsan oo aynu markaasi ku jirno xilligii weliba coronaviruska oo weliba adduunku kala xiran yahay haatanna waxaa qadka taleefonka igu jira guddoomiyaha ururka soomaalida jaaliyadda waddanka Finland mudane injineer maxamed ibraahim maxamed ugu horeyn guddoomiye kusoo dhawow idaacadda warsan waan dhawi walaal maxamed guddoomiye waad la socotaa xaaladda waddanka iyo guud ahaanba caalamka oo dhanba oo cudurka coronavirus adduunka aafeeyey bal waxaad nooga warantaa xaaladihii ugu dambeeyey ee dalkan Finland iyo Soomaalida walaal ma sha Allah alxamdulillah wax walba yimaadeen oo islaam bay nahay waxa weeyaan inagu maxay niyadeena mar walba waa qawi wax walbana runtii waan adkaysan karaa bay nahay runtii muxuu ahaa ilaahay aaminsan sidoo adduunka oo dhan u haleelay buu inagana inoo haleelay maxay baalka corona la leeyahay Soomaalida Finland markii hore waxa la lahaa dad badan buu ku dhacay sida maxay wararka adigu la isla dhexmarayay marka ninkii bari saabkii reer Helsinki waa kii kaga dhawaajiyay arrinkii uu yiri maxay Soomaalida ugu badan marka adu waxaad moodaa imaka laakiin sidaan wararka ku hayno aan ogsoonahay in ay Soomaalidu maxay tagaysa dhakhtarada laga helaya ay runtii aad iyo aad imaka ay u yar tahay wax badan waliba ay hoos u dhacday laakiin maxay kulay waxa la leeyahay Soomaaliba ugu badan ilaa iyo imaka wax dhaatayo maxay sugan oo muxuu ahaa on hayna ma jirto anagu aan gacanteeda insha Allah ku dhignay waxna loo soo maxay sasawiray waan helay laakiin dhata anagu aan hubin karno maan helin waxa jiray oo in dhawaalaba waddanka Finland iyo Soomaaliduba isla dhexmarayeen ururka jaaliyadda waddanka Finland ee Soomaalida ee aad guddoomiyaha ka tahay ayaa qayb ka ahayd oo hadalka guddoomiyuhu inuu ku hadlo kala shaqeynaysay arinta maxaad ka leedahay arintaas waxa weeyaan waa arrin runtii beena cidii muxuu ahaa waxa ku hadlaysana waxaan oran lahaa waxa weeyaan xilli Ramadaan lagu jiraa bishii Ramadaan baa lagu jiraa runtii waxba anaga ashara noo shaqeynina waxaan oran lahaa inuu kutiina u dhowra anagu sidaanu waxaanu soo saarnay bayaan cad oon ku dhignay sidii arrinku wax u dhaceen xilligiina la soo xidhiidhay wixiina lagu yiri iyo waxaanu ka jawaabnayba waanu dhiibnay markaanu dhiibnay muxuu ahayd inay waxaan u dirnay madaxweynaha dalka waxaan u dirnay prime ministerka waxaan u dirnay Jan Babavori waxaan u dirnay dadkaas oo dhan baan u wada dirnay aan u sheegnay muxuu ahaa in ay muxuu ahayd inay arrinku sidoo u dhacay iyo arrinku sidoo yahay taa waxa maxay ahayd ka sii daran anagu emaailadii aan u qornay aan uga digaynaan lahayn waxaasi muxuu ahaa waa arrin xun yaan lagu dhaqaaqin baanu haynaa oon u dirnay intuuna maxay ahayd ayna dhicin muxuu ahaa una hadlin prime minister maxay ahayd barisaab waxa kale oo jirta in anagu laftirkeyga ahayd maalinta barisaabku ku hadlayay inaan ka garab hadlo waxaanuna ku diidnay waxa weeyaan anshax xumo iyo wax ummadda Soomaaliyeed magac xumo u soo maxay hooynaysa anagu ma garab istaagayno kuma taageerayno laakiin muxuu ahaa arigaasi waa been waxa weeyaan qayaxan oo nageedna loogu soo gaban kaloo jiray oo dadka Soomaaliyeed la leeyahay waa dad dhibaataysan oo xoolama haystaan oo dhaqaale loo bixiyay oo idinka dhaqaale la idin soo mariyay oo aad markaas ugu qaybiseen iyadoo aan ognahay sida aan wararka ku haynana in dad kale iyo warar kale ay qaybinayeen lacagtaasi taa sidee baad u aragtaa maxamedow oday maxay adeeryahayo la yiraahdo maxay maxamed xaashi baa wuxuu yiri meel loo magacaabay Hargeysa baa wuxuu yiri muxuu ahaa ilaahay dadka amba sideedo iga dhig amba sideeda ka dhig marka tiiban anigu marka maanta aad moodaa inaan ku dhadhowahay Soomaalida waxa ka soo hadhay waxba la cunay waxa weeyaan anu kelmadahaasina waa kelmado runtii low ah oo hooseeya oo wax liita ah wax la cunay iyo waxna afkiisa galay iyo wax maxay deeniisha waxaan loo jeedin in dadku ku mashquulaan waxa weeyaan wax liita weeyaan marka koobaad ma jirto anagu lacag aanu dalbanay intay koronadu socotay lacag aanu dalbanayna ma jirto lacagna loo soo shabeeyna ma jirto intaasoo dalabyo maxay joogayo baxayna anagu marnaba maanu dalbano maxad kamaanu qayb galnaa dalabkiisa waxaanu ku mashquulsanayn anagu sidaan u jawaabi lahayn sidaan ummadda isku keenin lahayn sidaan masaajidada maxay u tagi lahayn sidaanu maxay dadkaanu maxay u wacyi gelin lahayn
arrimahaas oo dhan ba walaal anagu aan ku mashquulsanayne kumaanu mashquulsanayn lacag iyo waxa anu nin shaqaystaan aho injineero PhD haysta ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu shaqeeyaa maxay tabaruc baan ugu shaqeeyaa 2 sanaan u imid ummadda Soomaaliyeed inaan tabaruc ugu shaqeeyo labadeedii sanana imika waxba kama dhibno waa gabagabo annagu tabaruc baan ku shaqeynaa waxaan u sheegayaa ka dambe meeshan soo socdo aniga igu xiga wallahi in lacag meesha ku oolin lacagin meesha ma taale dhabarkaad ka jabaysa ummadda Soomaaliyeedna waad u shaqeynaysaa marka meeshan wax lacag lagu qaato maxay ma yaale dad sharaf leh oo maxay ummadda Soomaaliyeed u shaqeynaysaa oo maaliya habeen daalan oo maxay ii sheeg xilliga imika aanu intaan shaqadeedii ka soo baxay maxay aan dhiibayo haddana aan ku noqonayo ba ayaa walaal jirtee wax lacag lagu qaatay ma jirto anagu lacag maanu dalban lacagna lama siin waxaan maleynayaa warkaasi inuu waadix yahay oo ciddii sii wadaana ay markaasi dembi ka helayso iyadoo bishii barkaysnay Ramadaan aynu ku jirno waxaa kaloo jirta dhalinyaro is abaabulay oo qaarkood ay yaanba baaboor laftigiisa u shaqeeyaan oo haddana leh danihii ummadda ayaanu ka shaqaynaynaa taa sidee kula muuqataa horta dhanka dhalinyartaas nunu waxaan ogaa dhalinyartu iyaga oo maxay shay address sameeyey addressna address maxay qurux badan buu ahaa oo maxay oo ka fal celiyeen wixii odaygaasi uu ku dhaqmay sidaan anaguna u dadaalaynay bay dhalinyar kale oo isxilqaantay runtii aan u haysanay inay maxay wanaag ku socdaan oo ka dhiidhiyeebayaan haddaba dhalinyarta mid baan imika uga degayaa waxaan uga degayaa wanaagii aad u cararteen maxay dadaalkii aad samayseen dhididkii aad maxay aad daadiseen inuu dhan kale u dhicin waxa lagu yaqaanaa baa layidhi laba nin baa lagdamay kii muxuu ahaa idin sheeg dhuubnaay xooga yaraabaa wuxuu sameeyey kii xooga weynaabaa dhan intuu sidaa u leexiyeyba markuu kii kale sir dhan kale u leexiba dhankii xoogiisa u badnaabuu saa ugu tuuray haddii aad awood badan aad isticmaasho dhankaad u socotaba lagu isticmaalayaa jarka lagaa sii tuuraya marka dhalinyarta waxaan oran lahaa jarka yaan laga tuurin dhalinyartii ummaddaa tihiin dadkii annagana bedeli lahaa baa tihiin dadkan ummadda u shaqayn lahaa baa tihiin waxaa kaloo imika aan maqlaa oo runtii muxuu ahaa warqado laysla dhex marayo la leeyahay cidima ku matashaa cidi muxuu ahaa idin sheeg adiyaa ku matala warqadahaasina haddii maxay idin sheeg waxa laga dan leeyahay maxay u socoto runtii waxaan u malaynayaa inay dhib weyn ay ummadda u soo hoynayso mid kalena waan ku yar dheeraade maxay maxamedow mid baan kuu sheegayaa Soomaalidu waxayna iyadoo inay iskugu keenin horta uma timaado waddan maxay markii mandaqadeenu ka nimid baa waxaynu sameynaa qaaradda maxay Ethiopia tinteena baabinaban ku qornaa magaasaa la yiraahdo Ethiopia na qabsanaysa ninkii hurday baa soo tooso musu yiraahdo ummadda waad qabsan kartaa waxa kaloo jirta ummaddan dhalinyartan soo tahriibtay waxa la yiri kuwii ugu horeeyay ba waxay yiraahdeen hooyaday aabahay baan lacag ka qaadeenay been baan sheegaynaa hana la qaraaco markaas maxay beentiisii loo sheegay markii dambe lagaga dhabeeyay arrinkan Soomaalida ugu badan cudurka nin Soomaaliya ka soo yeedhay markii koobaad imaka waxaan maxay idin sheeg ceebteena dadkan fidinaya ceeb aananu lahayn iyo ceeb dad aan lahayn fidinaya waxa ogaadaan in meediyadeena la dhageysto Google maxay translation lagu dhufto haddii loo baahnayn dad maxay dadka u shaqeeya jiro maxay turjumaanaa marka waxaan oran lahaa war ceebtiina astura oo maxay ceebtiina astura oo maxay noqda dad muxuu ahaa ii sheeg iyagu maxay isku maxay eemida oo maxay dantooda iyo wuxuuga wada ummadu waxay nahay ka hadasha imka anu maxamed maxay wareysigii hore adiga qaaday dadka positive baan u sheegay laakiin imka positive maadaama ay aan arkay xumaantii oo socota iyo muxuu ahaa iyo eedayn badan oo socoto on raadi sal aan lahayn waana ummadda lagu yiraahdaa war waxaasi waa waxa dhow ninka nagu soo noqon doona idinku meeyni darantay joojiya baan orla ugu dambeyntii dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee maanta ku dhageysanaysa dal iyo dibadba maxaad mid iyo laba oran lahayd maanta anu mid baan oran lahaa maxay dadka xumaanta faafinaya mid baan oran lahaa dhalinyartan maxay energy-ga wada runtii fiican in anagu badankooda aqaano niman wanaagsan oo maxay wax rabana maxay inii sheeg mid baan oran lahaa shacabkana mid baan oran lahaa nimanka maxay inii sheeg xumaanta faafinaya waxba ma oranayo waxaan oranayaa halka ka wada oo maxay waxaan oran lahaa annagana waad noo shaqaynaysaan idinkuna waad ku guban doontaan baan oranayaa marka koobaad waa marka labaad dhalinyarada waxaan oran lahaa war anuguba 10 jirba waddankan aan ku yimid ana ini taageeraya urur sameeya waxaad samaystaan urur ummadan u shaqeeya
waxaad samaysaan systemadan jira imaka aad eedaynaysaan mid ka fiican anaa imaka anoo bartaa ka hadlaya waxaan ballan qaadayaa inaan bil walbaba maxayday fiigeyga bixiyo inaan tabarucno saan kan ugu shaqeeyo kaa ugu shaqeeyo markay marka iyagu keenaan system kan dhaama oo ka fiican oo hooyooyinka caawiyaan oo ummadda wax taraan markaasay waxay odhan karaan anagu waxaan ku bedelanahaynaa dadka marka ayay u soo yaacayaan laakiin wixii ummadda lagu yaqaanay soomaali ee ah ka hore hanu dumino wax aan ku bedelana ma hayno kadib baa la fakeri doonaa taasi walaalayaal wax soconaysa maaha baan odhan lahaa ummadda shicibkana mid baan odhan lahaa waxaan odhan lahaa war ummadda shicibku ha ogaato oo dadka hala xisaabtanto oo ha ogaato dadka u shaqaynaya oo dadka maxaydayn u dhididaya ha ogaato oo nin walba meel iska soo fadhiisto hadlaya inay ogaane ummaddani ha lahaato maxayday mijiye madax baan odhan lahaa dadkii waddankii joogana waxaan odhan lahaa ummadda soomaaliyeed maxayday meel walba ay joogaan ininku maxayday mandaqadeennii baan ka hadlayaa ininku waxaad tihiin dad khayr qaba ilaahay nimcuni inii dhameeyey roobab badan baa inii daayey alxamdulilah baad ku jirtaan diintiinii baad haysataan eedaankii baa inaga dul socda waxaan odhan lahaa markaa tahriibkii waa dhammaaday xilliga yurub loo soo tahriibayey xilligaad idinku dad noqon lahaydeen ummadda la tartami lahaydeen baad ay la gaadhay annaguna insha allah waad nagu taageeri doonaa baan leeyahay aad iyo aad baad injineer u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida waddanka finland injineer maxamed ibraahim aqoon-yahan oo markaasi isagu dalkan degan haatanna dadkiisii soomaaliyeed si mutadawacnimo ugu shaqaynaya har iyo habeen isagoo markaasi shaqadiisiina ku jira mar kale ayaan kaaga mahad celinaya guddoomiye waa mahadsantahay walaal insha allah inta ayaan kusoo gabagabanaya barnaamijkeenii aan waraysiga la yeeshay guddoomiyaha jaaliyadda waddanka soomaalida ee finland injineer maxamed ibraahim tan iyo kulanteen dambe waa maxamed musey maxamed ibraahim oo idinla sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu